sida aan amiin sheegay ururka Israel la dhahaan director ahay waxa kale nala joogo dadkeena kale staffka nala shaqeynaya iyagana joogaan hadafka meeshaan u imaanay waxa weeyaan inaan waxa laga wada hadlay arimahan talaalada iyo autismki waxa dhan anaga meesha uma joogno way jiraan dad ka shaqeeya arimahaas hadafka anaga inta imaan wax waaye in waalidiinta haysta ilmaha autism ku dhacay inaan ka shaqeynay sidii naftooda ay uga taxadari lahaayeen boqolkiiba boqol waxaa mashquul ku noqonaynaa hooyada iyo aabaha ilmuhu ka jireen inaan sidii ay naftooda uga taxadari lahaayeen oo walaaca iyo bahaarka haysta looga bi'in lahaa anagoo u kaashanayna diinta oo anagoo u kaashanayna cilmigeena iyo wixii resource on hayna inaan ka shaqeyno waxaan ognahay waalidka ilmaha jiran haysta inaynan haysanin meelay ku nastaan amaba waqti ay nastaan oo hurdo la'aan ku dhacday oo caafimaad darro ku dhacday oo cidla dareemayaan waxa kaloo jirta in waalidiintii markii hooyadii iyo aabihii ilmo ay haystaan xanuunsan inay dabeecadii ay yaraanayso oo la u malaysid guurka calaaqaadkii inuu yaraanayo oo ay familiga ay xoogaa kala jabayaan hadafkeenu ugu weyn marka wuxuu yahay inaan ka shaqeyno maxay tahay dhibaatooyinka ugu weyn inuu waalidku u nasan la'yahay oon meeshaan u taaganahay inaan dhageysano waxa jiro aan xal aan la sameyno waalidkii taas anaga noogu balana ra'yiga badiyaa Israel organization-kana wax aanan ognahay inaanan ka soo bixinin ma sameyno wax also anaga ma nihin dad wax walba expert ku ah oo khibrad u leh hawsha hadda aan qabano waxay tahay inaan la shaqeyno waalidiinta ayaga og dhibka jira ayaga og waxa jiro laakiin inaan u noqono khaadin oo aan arintii aan program ku sameeyno haday noqon lahayd waxaan maqalnay iskuulka ilmi indhibka haysto waxaan ognahay hurdo la'aan iyo housing la'aan inay jirto waxaan ognahay in meelay ku nastaan ilaa hooyadii aabe baawur uu ku jiraan oo ilmi kale xitaa aan jiranayn ama autism ka qabin xitaa iyaga ay dayac ay la'yihiin marka waxaan halkan mahad uga celinayaa walaalkay Mustafa oo asagana ah in organization ka lead garanayo African Immigrant Community Service oo la'aantiis baan masjidkan aanan caaw imaan lahayn marka Mustafa waa mahadsan tahay Mustafa iyo aniga waa la shaqeynayna wax rabnaa community-ga inaan wax fiican u qabano waxa kaloo ayagana aan calaaqadna la dhaxeeya oo aan si fiican ula shaqeyn doona insha Allah in Dakota County oo areadan Argentina ah oo caaw u joogan yarkan Evan iyo Erica oo mashruuc leed garanayaan maxaan rabaa markii inaan ku soo celceliyo hadafka meeshaan maanta u joogno xawaay hadaa hooyo tahay iyo hadaa aabo tahay oo ilma haysatid autistic inaan rabno inaan ku noqono khaadin oo ilaa nagu ogyahay oo wax political ama wax issue ama wax maslaxad in uu qabin oo rabno in awood cilmiga Ilaahayna siiyay inaan khaadin idinku noqono oo wixii jira aan wada sameeyno wixii aan jirina aan wada qorno si haddii noqon lahayd dadka aan doorano oo aan u voodno haddii noqon lahayd masjidka haddii noqon lahayd wax walba inaan wixii aan wax ka qabno laakiin mid aan idinkaga digaya waxay tahay socodkan yani ma ahan wax mashruuc ma ahan oo wax soconayo weligiis lees oo loo baahan yahay in la samro la isku dulqaato lana is dhageysto aniga fartuun ahaan waxaan kaga balan qaadaa inaan idin dhageysto inaan intii awoodaya aan caawiyo habeen idin la shaqeeyo oo aan la kaashanayo in walaaleen masaajidada Mustafa iyo dadkeena kale hadda waxaan rabaa inaan inta ku soo dhaweeyo in yarkan meesha la taagan oo Evan loo dhaha asaga iskiin introduce garana and then I'll translate if I can. Thank you, Fartun. Ramadan Mubarak, everyone. Thank you for welcoming us here tonight. We just wanted to take a moment and introduce ourselves and look forward to more conversation throughout the evening. My name is Evan Henspeter, and this is my colleague Erica Johnson. And we work for Dakota County Social Services and have a specific focus on autism and on helping the families of people with autism find support and find resources that can help reduce the stress that comes from parenting a child with autism. Should we translate that? Should we interpret that?
سبع مليون مغليا دان سكادلو السلام عليكم نكان ودن سلامي رمضان كريم يدن ليهي wuxuu leeyahay Ramadaan wanaagsan magaciisa waxa la yiraahdaa sidoo inoo sheegay Abler ayaa la yiraahdaa Abler right iyo Erica la yiraahdaa waxay ka socdaan Dakota County ama degmadan Dakota aan deganay ka socdaan gaar ahaan waxay u shaqeeyaan waaxda maxay ahaydey social services ka ama maaragtay qolyahan oo ka shaqeeya adeega bulshada ee ka socdaan marka waxay ka shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha ilmahan xanuunada hadda soo baxay ku dhacay autism-ka loo yaqaan oo kale ay ka shaqeeyaan marka halkaas ayuu hadda marinaya waan ku celin doonaa I'll take more breaks. Let's do that. What we're working on right now is a 2-year grant that we received from the state of Minnesota to expand respite care for the families of people with autism. And so we are here tonight to be a part of this conversation with you all and learn about how you view the need for respite care or the need for a break if you are a caregiver of a person with autism. hadda waxaan haynaa wiili oon ku shaqeynaynaa lacag ama maaragtay dakhli ay bixisay dawladda gobolka Minnesota oo 2 sano soconaya kaas oo loogu talagalay qoysaska ilmahoodu ay xanuunkan qabaan oo kale in lagu siiyo caawinaad ama loogu fidiyo gacan si u nastaan sababtoo waxa loo yahay ilmaha dadkan ilmaha xanuunsanaya dad waalidka haya inay u baahan yihiin gargaar iyo kaalmayn maadaama oo ilmihii waqti badan u baahan yihiin marka sidaad u aragtaan caawinaadaas ayaan ka wada hadlaynaa buu As part of that grant, we have partnered with Issaroon and Fartun to do outreach and education with the Somali community around the topic of autism. And so we really see tonight as the first step in building a relationship in the community in order to work together, understand how this community views autism, and then be able to provide support and resources. And Fartun, thank you for pointing out that African Immigrants Community Services is another important partner to this work that we're doing together. anigoo dakhligaas ay dawladda gobolka bixisay ku shaqeynayna waxaan iskaashi la sameynay hay'adda Isroon oo ay Fartun hogaaminayso iyo hay'adda African Immigrants yarkan walaalka Mustafa hogaaminayo si ay nogala shaqeeyaan wacyigelinta bulshada macnaha Soomaaliyeed ee degan degmadan Ramsey County Dakota County degmadan Dakota County dadkeena degan si ay macnaha wacyigelintooda iyo maaragtay wax u sheegooda iyo wada shaqeyn aan ula yeelano I'm glad actually that you mentioned Ramsey County because the grant that we're working on, we're doing in partnership with Ramsey County. And so really what our goals are is to help residents of Dakota or Ramsey County who have family members with autism find resources and support in order to reduce the stress that comes with parenting a child with autism. waan ku faraxsanahay inaad soo qaaday Ramsey County sababtoo ah dakhligan ay dawladdu soo qoondeysay waxaan kala shaqeynaynaa oo la wadaagaynaa Ramsey County iyadana oo aan kala shaqeynayno in shakhsiyaadka iyo qoysaska carruurta ay ka xanuunsan tahay cudurkan cusub ee nagu cusub ee autism-ka loo yaqaan la tacaalaya in aan kala shaqeyno si loogu fidin lahaa gargaar. And so tonight we're interested in really listening and learning and hearing from this community about how you view autism and how you see Dakota County as being able to be the best partner and ally to you in providing supports for individuals with autism and their families. marka caawa waxaan halkan u nimid inaan horta idin dhageysano wax idin ka barano idin maqallo ogaanana
sida ay Dakota County ama degmadan Dakota County deganahay ay u noqon lahayd sida ugu wanaagsan ay idin la shaqeyn kari lahayd qoysaska baahidaas qaba iyo sida aad u aragtaan macnaha cudurkan wuxuu yahay iyo sida uu idin saameeyay. So with that, I'll just again say thank you for welcoming us and Ramadan Mubarak. And would love to hear from others tonight what your experiences are with autism and how you see us as being most supportive. So thank you. waad mahadsantihiin halkaas ayaan ku joojinayaa waxaan idin rajeynayaa Ramadaan wanaagsan waana sugaynaa macnaha si aan wada sheekaysigayna aan wax idinka barano sunu dheeysano. Okay. Thank you.